cashirkan waxaan ku baranaynaa multiply and simplify rational or fractional expressions sida la iskugu dhufto loona simplify gareeyo rational ama fractional expressionska. Rational expression waxaa laga yiraahdaa Mareykanka adduunka intiisa kalena waxay u yaqaaniin xisaabta noocan oo kala ah fractional expressions. Marka cashirkan waxaan ku baranaynaa sida la iskugu dhufto rational expressionska. Rational expressionka wuxuu yahay waa fraction caadi ah oo leh xarfo sida hadda kan oo kale waa fraction, laakiin fractionka kale wuxuu uga duwan yahay ama jajabka kale wuxuu uga duwan yahay waxa weeye wuxuu leeyahay xarfo sida x oo la exponent 3 ama x. Marka rational expression ama fractional expressionska waa fraction wata xarfo. Marka waxaan baranaynaa cashirkan sida la iskugu dhufto loona simplify gareeyo. Marka tusaalahan si aan u simplify gareyno, marka ugu horeysa wuxuu leeyahay 6x oo la exponent 3 over 9 lagu dhuftay 3 over 5x. Marka waxaan subinaynaa marka ugu horeysa waan isku dhufanaynaa. Marka fractionka la isku dhufanayna waxaa la isku dhuftaa labada lambar ee hoose, labada lambar oo korana waa la isku dhuftaa. Marka 6x oo leh exponent 3 baan waxaan ku dhufanaynaa 3 baan ku dhufanaynaa. 6x oo exponent 3 leh baan waxaan ku dhufanaynaa 3 haddana 9 baan waxaan ku dhufanaynaa 5x baan ku dhufanaynaa. Marka isku dhufo 6x oo leh exponent 3 waxaad ku dhufataa 3 6 lagu dhuftay 3 waa 18 9 lagu dhuftay 5 waa 45. marka si ma isku dhufanayno waan simplify gareynaynaa sidooda ayaan ku daynaynaa. marka waxaad subsanaysaa haddana 6 baa waxaad u qoranaysaa factorkeeda ama prime factorization ayaad subsanaysaa. marka waa maxay prime factorization of 6 waa maxay? waa 2 lagu dhuftay 3 weeye. x tana factorkeeda waa maxay? waa 3x weeye la isku dhufanayo. 3x ku dhufa x ku sii dhufo x. lambar 3dana factorkeeda waa maxay? waa iska 3 ama waa hal 3. markuu sidaas yahay 9kana waa maxay factorkeeda? 9ka waa 3 lagu dhuftay 3. 5tana waa maxay? 5x-na factorkeeda waa maxay? 5x waa 5 lagu dhuftay x lagu dhuftay x. markuu sidaan yahay baa waxaa la kansalaa kuwa isku eg oo dhan baa la kansalaa. 3 iyo 3 waan kansalaynaa sababtoo ah waa 2 lambar oo isku mid ah. x iyo x-na waan kansalaynaa waa 2 lambar oo isku mid ah. 3dan iyo 3danna waan kansalaynaa sababtoo ah waa 2 lambar oo isku mid ah. marka maxaa noo haray? waxaa noo haray 2 iyo x iyo x iyo 5 baa hoos noogu hartay. marka kor waxaa noogu haray 2 haddana 2x baa noogu hartay. marka isku dhufo 2x ku dhufo waa x square. marka x square x si fiican u qor. hoosna maxaa noogu haray? waxaa noogu haray 5. marka saas baa loo qortaa. jawaabteena ugu dambeysa waxaa waaye 2x square over 5 way jawaabteena ugu dambeysa. tusaale kale aan subinaynaa. tusaalahan waan tirtiraynaa. hadda waxaan subinaynaa tusaalahan x square laga jaray x laga jaray 20 over x square laga jaray 16 lagu dhuftay x laga jaray 2 x lagu daray 5. marka ugu horeysa kuwan waa isku dhufasho. marka labada qaybba waxaan gelinaynaa parenthesis baan gelinaynaa. waxaad u dhiganaysaa sidaas saas baa u dhiganaysaa. waxaad u dhiganaysaa x square laga jaray x laga jaray 20 over haddana kii korana muxuu ahaa parenthesis baa isna gelinaysaa x laga jaray 2 qaybtii kore wataa
qaybtii hoosena x laga jaray 16 haddana x lagu daray 5 saas markaa parenthesis u gelisid baa waxaa la suubiyaa waa la factor gareeyaa hadda kanoo kale waad factor garaynaysaa midkan hadda kan midkan waa difference of square way sababtoo labada dhinacba dhankan square buu ka yahay kanna square buu ka yahay marka waa factor garaynaysaa kanna waa factor garaynaysaa marka si aan u factor garaynana waxaa weeye waxaad suubinaysaa kan markii la factor gareeyo wuxuu noqonayaa kan kore wuxuu noqonayaa midkan trinomialka kore wuxuu noqonayaa haddii aadan aqoon si loo factor gareeyo trinomialska iyo difference of squareska waxaad daawataa labada kale oo video oo ku saabsan arrintaas ama cashirkaas ama kan wuxuu noqonayaa 4 x laga jaray 5 ayuu noqonayaa midka kore kan kalena wuxuu noqonayaa midka kan waa soo qaadanaysaa iska factor garaysan yahay x minus 2 gana may labadana horta factor garaynayna trinomialka waan factor garaynay difference of squares kana waan factor garaynayna difference of squares waa maxay waa x lagu daray 4 iyo x laga jaray 4 weeye haddii aadan aqoon daawo midka kale marka labadan x kuwaan ahaa qaybtan xigay oo x minus 2 ga waa soo qaadanaysaa parenthesis baa dhex gelinaysaa x minus 2 buu ahaa x plus 5 kana parenthesis baa dhex gashanaysaa isagana markaa saas suubisid baad waxaad suubinaysaa waa cancel garaynaysaa kuwa isku midka ah marka kuwa isku midka ah halkan x plus 4 iyo x plus 4 waa isku mid marka labadoodaba waa cancel garaynaysaa maxaa kaloo isku mid ah meeshan maxaa kaloo isku mid ah waxaa kaloo isku mid ah wax baan ka ilooba haddaayto midkan pluska ahayd inuu minus ahaadaa loo baahnaa marka haddaan ka dhigayaa minus kanna pluska ah inuu minus ahaadaa la rabaa markaasna minus ka dhig midkaanna waa inuu minus ahaadaa waan ka iloobay haddaaye iga raalli ahow markaa saas suubisid hadda marka kii oo pluska ahaa minus baa ka dhiga haddaa ka iloobay marka hadda kan waan kasanla 4x x plus 4 iyo x plus 4 waa laba isku mid waan kansalaynaa maxaa kaloo isku mid ah hadda halkan waxaa isku mid ah x minus 5 iyo x minus 5 waa isku mid marka cancel kanna cancel marka kor maxaa nugu soo haray kor waxaa nugu soo haray 2 x minus 2 ayaa nugu soo haray x minus 2 hoosna maxaa nugu soo haray x minus 4 ayaa nugu soo haray hoosna x minus 4 marka final answerkaaga wuxuu noqday x minus 2 over x minus 4 ayuu noqday tusaalahan waan tirtiraynaa waxaan subinaynaa mid kale marka waa inaan tirtirnaa hadda waxaan subinaynaa tusaalahan x square minus 3x minus 18 over 9 lagu dhuftay 3 over 3x square lagu daray 12x lagu daray 6 marka si aan marka ugu horeysa waan factor garaynaynaa trinomialkan midkan trinomialkan iyo trinomialkan ayaan factor garaynaynaa marka si loo factor gareeyo waxaa weeye waa taqaanaa haddii aadan aqoon waxaad daawataa videoga kale okay waxaa weeye 3 haddana inta 6 marka trinomialkan kore factor garaysid baad waxaad suubinaysaa midka hoose baa factor garaynaysaa oo midkan ah marka trinomialkan haddii aan factor garayno wuxuu noqonayaa 3x haddana 3x lagu daray 2 parenthesis haddana wuxuu noqonayaa x lagu daray 3 saas buu noqonayaa markuu saas noqdo baa hadda waxaan subinaynaa number 9 baan factor garaynaynaa 9 haddii la factor garay muxuu noqonayaa 3 lagu dhuftay 3 ayuu noqonayaa
lambar 3na haddii factor garaysid muxuu noqonayaa waa iska 3 ama 3 iyo 1 markuu sidaas yahay baan waxaan suubinaynaa hadda waxaan kansalaynaa kuwa isku midka ayaan kansalaynaa kuwa hadda isku mid ah qaybta kore 3x lagu daray 3 iyo x lagu daray 3 waa laba isku mid ah waa laba isku mid ah x lagu daray 3 iyo x lagu daray 3 waa laba isku mid ah markaan kansalaynaa kan waa kansalaynaa kana waa kansalaynaa marka saa u kansashid kuwa kale isku midka ah waa 3dan iyo 3dan 3 iyo 3 waa isku mid markaan kansalaynaa kansalkan kana kansal marka maxaa noo soo haray waxaa noo soo haray x minus kor waxaa noogu soo haray x minus 6 x laga jaray 6 baa kor noogu soo hartay x laga jaray 6 baa kor noogu soo hartay hoosna maxaa noogu soo haray hoos waxaa noogu soo haray 3 haddana parenthesis 3x lagu daray 2 ayaa noogu soo hartay marka 3 baa dhiganaysaa parenthesiska haddana 3x oo midtaas ah lagu daray 2 marka hadda sababta kuwa koro aga bixinay parenthesiska waxaa weeye maadaama aysan jirin lambar kale oo soo raaca aysan nagu soo harin kor lambar kale waa inaan ka bixinaa parenthesiska x minus 6ka x minus 6 waa inaan ka bixinaa parenthesiska maadaama aysan jirin lambar kale oo kor ku yaala ama jooga laakiin qaybta hoose 3x plus 2ga kama bixinayno parenthesiska sababtoo ah lambar kale meesha jooga oo ah lambar 3 marka hadda inaad kan sii wadid ma hadda subin kartaa distributive law sii subin kartaa laakiin looma baahna inaad subisid haddaad subisid still wax kaloo lasii simplify gareeya ma harsana marka waa shaqo dheeri ah oo aan loo baahnayn marka final answerka ama jawaabta ugu dambaysa waxaad ku daynaysaa intaas 3 waxaan ka wadaa x laga jaray 6 over 3 parenthesis 3x plus 2 parenthesis haddana sidaas baa ku daynaysa markaad isku dhufanaysid simplify garaynaysidna rational expressionka ama fractional expressionka marka ugu horeysa waxaa la subiyaa mid walba ayaa la factor gareeyaa hadda sida trinomialkan oo kale waan factor garaynay haddana 9ka hoose waan factor garaynay 3da waan factor garaynay haddana trinomialkan hoosena waa factor garaynay markaa factor garaysid mid walba waxaa la suubiyaa waa la kansalaa kuwa isku midka ah sidaas ayaa lagu daayaan markaa cancel garaysid kuwa isku midka ah waxaa kuwa kuu soo hara baa meesha lagu qortaa jawaabtaada ah waana ka final answerka saas buu noqonaya hadda tusaalahan waan tirtiraynaa waxaan subinaynaa mid kale hadda waxaan subinaynaa tusaalahan wuxuu leeyahay 15x square over 9x square lagu dhuftay 4 over 8 marka waxaa subinaysaa trinomialka waxaa la subiyaa midkaas baa qoranaysaa dheer marka lambarada koraa la factor gareeyaa lambarada hoosena waa la factor gareeyaa lambarka koraa haddaan factor gareyno 15 haddaan factor gareyno muxuu noqonayaa 3 lagu dhuftay 5 ayuu noqonayaa labada x square haddaan factor gareyno wuxuu noqonayaa x lagu dhuftay x ayuu noqonayaa 9 haddaan factor gareyno wuxuu noqonayaa 3 lagu dhuftay 3 ayuu noqonayaa 4 markuu saas yahay 4 haddaan factor gareyno wuxuu noqonayaa 2 lagu dhuftay 2 lagu dhuftay 2 ayuu noqonayaa 8 haddaan factor gareyno wuxuu noqonayaa 2 lagu dhuftay 2 lagu dhuftay 2 ku dhufo 4 ku sii dhufo 2 waa 8 markuu saan yahay baa waxaa la kansalaa kuwa isku midka ah oo x-ka inta ka ilownay 9x-ka 2x x square-keeda waa 2x marka la isku dhuftay markaa factor garaysid x ku dhufo waa x square markuu saas yahay baa waxaa la cancel galayaa kuwa isku midka ah oo qaybta kore iyo qaybta hoose kuwa isku mid ka yihiin marka 3dan iyo 3dan waa isku mid waa cancel garaynay x-ta iyo x-ta waa isku mid x-tan iyo x-tan waa isku mid waan cancel garaynay maxaa kale
labo iyo labo waa isku mid waan cancel garaynay labo iyo labana waa isku mid waan cancel garaynay marka maxaa noo soo haray waxaa halkan koran ugu soo haray 5 kaliya noo soo harta lambar 5 marka kor 5 baa nugu soo haray hoosna maxaa nugu soo haray 3 iyo waxaa nugu soo haray 2 marka 3 waxaad ku dhufataa 2 maadaama isku dhufasho ahaayeen 3 ku dhufa 2 waa 6 weeye marka jawaabteenu wuxuu noqday 5/6 ayaa noo soo haray 5/6 5/6 ayaa noo soo haray